qaraxan ayaa ka dhacay goob laga raaco gaadiidka u safro tuulooyinka u dhowdhow magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Qaraxan ayaa geystay khasaare ah dhaawac oo gaarayo 14 ruux oo iskugu jiraan dumar iyo ragba oo ahaayeen dad rayid ah. Dadweynaha ku dhaawacmay ayaa loo daadgureeyay isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Kaamirada Kalsan TV ayaa la kulantay dadweynihii ku dhaawacmay qaraxaasi oo booqanaya gudoomiyaha gobolka Baay iyo ku xigeenadiisa. Ugu horeen waxaa ka hadlay qaraxani gudoomiyaha gobolka Baay Dr. Cabdi Aadan Hoosow. gobolka Baay caasimadiisa Baydhabo bama dad shacab la ka dhaxtooray tumaya farqofa ka dhaawacantay tan macnaheedu ma ah in security beledkii amaanka beledka wal ku dhiyeen oo yaani amaanka beledka garan ka jarna ma macnaheedu dadaas mufasiran fadaan lanka bamka gemi aan hadireen basaasan mufasiran fadaan laakiin way ogaadasana Boston oo America bani ku dhii bam oo qarax ku dhii America nibad ma mal ee record ana dambi sidisba marmar lay ku horseedo leey preemption leh marka dadkii weerarkaas fuleynimada ee hagaadi way leenaha sidiisan mufasirtan fadaasan ma ah Baydhabo nibadu silaynahadas oo balandiidna nabadgelideen suuq baylaada salaan astaasu oo balandiin wal ku shaqeeyo hay tan lama dadkun aragdeeda ka dhaawacmeen oo shacabka oo masaakiinta way Ilaahay ku tuugan oo dheebada in Ilaahay aragdeeda caafimaad siyo faylaadan Ilaahay ku tuugan walaalo walaagay isbitaalka haneen ku baahdo tabartiis ku badato daawo leeyahay aragdeeda baanis leeyahay isbitaalka ku badato insha Allah anoo kala hariirsan oo balandiidna waan sheegan dad ku degan degmadu Baydhabo gobolka Baay degmadiis Baydhabo dadka degan waan sheeganay haddii jaran dadsiinka gabadayaan dadka weerarada nooc oo qaadayaan qabiil ma leh walaal ma leh dadnimo ma leh saaxiibtinimo ma leh walba ma leh dadkii haddii inta ka dhaawacaan dadiyo hamerideen ma bambi ka dhaxtuura lankasti ka jaro kor may weela saanaha sheega dadka haan haato oo walaawan suubiyadan ha sheega hadii meelka ogtin lankii la ka hela dad noocaas ay niisu qariyo dambiilo waay oo la ka ogaa beledka dada ku shaqeeyo hay dada og lankasto oo langariyo walowgi waan walaha hela doon oo Ilaahay haddana ma Ilaahay ku rajeeyo dadku dheebada in Ilaahay caafimaad si yaan ku rajeeyo eedan ma okay sidoo kale waxaa ka hadlay qaar ka mid ah maamulka isbitaalka ee magaalada Baydhabo farba wadana afritan qof kaasoo ka yimid macnaasha qaraxay macnaasha ka dhacay magaalada gudaheeda annagana ilaa hadeertan waxaan la tacaalaynaa aan ku dhex jirnaa shaqadooda afritan kaas qof oo dhaawacyo soo gaareen ayagana kala ah qaarna dhaawacyo lisa qaarna macnaasha dhaawacyo fudud markan waxaan rabnaa hadii la yiraahdo maadaama isbitaalka uu daawada ku yartahay iyo macnaasha in aan helno macnaasha daawooyin macnaasha ugu filan qof walba macnaasha daneenaya macnaasha isbitaalka inuu wax u qabto inay macnaasha isbitaalka wax u soo qabtaan ay soo gaaraan macnaasha gargaarna ay la soo gaaraan qaraxan ayaa ku soo aadayo xilli magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay amnigeedu si weyn u wanaagsanaa balse maamulka gobolka Baay iyo kan degmada ayaa sheegay isku socodka magaalada inuu saameyn u yeelanaynin qaraxan ka dhacay maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Abduqaadir Jookar, Kalsan TV, Baydhabo Channel.